shirkadda Hormuud waxay ku tiirsanaa jirtay matoorada isticmaalo shidaalka. Shirkaddu waxay sanadkii 2014 qaadatay in loo guuro tamarta cadceedda. 10 sano kadibna waxay ilaa hadda shirkaddu ku guuleysatay in 87% xarumaheeda ku yaala magaalada Muqdisho iyo guud ahaan gobolada dalka ay ku shaqeeyaan korontada laga dhaliyo qorraxda. shirkadda waxaa solar ku dhiirigeliyay ciladaha oo maaragtay ku badan generatorada qarashaadka shidaalka matoorada laga gala oo aad u far badan iyo dayactirta joogtada ah oo u baahan yahay iyo si looga baaqsado qarashaadkii iyo culaysyadii lagu qabay gaarsiinta shidaalka ee xarumaha ku yaalo gobolada fogfog iyo sidoo kale joogteynta servisyada ay u haydo bulshada Soomaaliyeed maadaama adeegga shirkaddu uu yahay adeeg laga maarmaan ah. maanta aan solar isticmaalno 87% sayidkeeno dhan waxaa naga yaraaday qarashaadka shidaalku baxay. Waxaa isbedel weyn uu ku yimid safaradii tirada badnaa ee lagu daabuli jiray shidaalka. waxaa si toos ah nooga yaraaday qarashaadka maintenance ahaa. solar system wuxuu noo suurageliyay macnaha in maaragtay aanan caqabadihii maaragtay downtime-ka oo naga yareeyo. waxaa kaloo kaga maaranay shidaalkii xilli walba isbedeli jiray sicirkiisa oo maaragtay aan fadhin oo valuation sameynaayo ama mar walba maaragtay kor u kacayo ama hoos u dhacayo. maartaas waxaan kaga maaranay inaan maaragtay stable power energy aan ka helno solarka. sidoo kale inaan meesha ka saarnay buuqii sawaxankii iyo qiiqii tirada badnaa ay matoorada ay ku deyn jireen hawada. 2024 oo kaliya waxaana sidaas ku baajinay 4675 tan oo ah carbon dioxide oo hawada geli lahaa haddii aan korontaas ka dhalin lahayn shidaalka. taasoo yareysay wasaqowga hawada kaalin weyn ka qaadatay ilaalinta deegaanka iyo la dagaalanka isbeddelka cimilada. caqabadaha ugu waaweyn ee lagala kulmay waxaa ka mid ahaa markii koowaad oo loo guurayay qarashaad tiro badan ayaa nooga baxay. sidoo kale waddanka maadaama infrastructure-kiisa ay culaysyo badan ka jiraan waxaa culays kala kulanay gaarsiinta qalabkii lagu rakibi lahaa sayidka fogfog ee shirkadda. caqabadahan kala kulan waxaa kamid ah maadaama solar systemka oo waddanka ku cusbaa in aqoontii loo lahaa markaas aad u yareed. saas darteed macnaha maaragtay waxaan ku qasbanaanay inaan shaqaalaheena train gareyno kadibna aan caqabadihiisaas ugu gudubno. marka solarka wuxuu soo saaraa tamar ku filan baahida tamar ee sayidku u baahan yahay iyo qayb lagu talagalay in la xareeyo ama la kaydiyo si looga faa'iideysto habeenkii. si aan la soconno shaqooyinka ka socda siteskaas ama xarumaha shirkadda waxaan isticmaalnaa remote monitoring system oo ah qalab kormeer digital ah kaas oo kuu saamaxayo inaad ogaato wax soo saarka maalinlaha ah ee sayid kasta oo shirkadda ka mid ah iyo haddii uu u baahan yahay in wax lagu kordhiyo ama caqabad ka jirta laga xalliyo. shirkadda isgaarsiinta Hormuud sida ay Hormuudka uga tahay isgaarsiinta teknoolojiyadda iyo guud ahaan horumarka dhaqaalaha dalka waxay sidoo kale Hormuud ka tahay ilaalinta deegaanka, la dagaalanka isbeddelka cimilada iyo ka faa'iideysiga tamarta dabiiciga ah. sanadkii 2024 oo kaliya waxaan cadceedda ka dhalinay 6.8 gigawatt hour oo koronto ah. waxaana naga go'an in 100% korontada ay shirkaddu isticmaasho aan ka dhalino cadceedda dabiiciga ah ee la cusboonaysiin karo. waxaan marka rajaynayaa Hormuud inay gaari karto net zero sanadka soo socdo. marka gaara waxaadna noqon doontaan case Soomaaliya laga sheego laga meel dhiga caalamkana loo gudbiyaad noqon doontaan. sidoo kale shirkadda isgaarsiinta Hormuud waxay isku xilqaantay kordhinta wacyiga bulshada ee dhanka ka hortagga iyo la dagaalanka isbeddelka cimilada iyadoo markasta oo qofku oo qof waco ay shirkadda xasuusinayso muhiimadda ay leedahay ilaalinta dhirta oo lafdhabar u ah nolosha dadka dunyada iyo deegaanka.